أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. janalka aad daawanaysaan waa alkarmo official. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qodobo ku saabsan nabiga dabeecadihiisa, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ilaahay ayaa ku sifeeyey inuu dabeecad weyn oo wanaagsan leeyahay, wuxuuna yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim. nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa mid tawaaduc badan. qofkii jiran wuu booqan jiray, janaasadana wuu xaadiri jiray, fuqarada iyo masaakiinta wuu jeclaa, waana uu la fariisan jiray. qofkii la kulmo wuxuu ku bilaawayay salaan iyo gacangelis. dameerka rukuub ayuu ka dhigan jiray. haddii loo yeero wuu ajiibi jiray, wixii loo hadiyeeyo wuu aqbali jiray. wuxuuna yidhi low uhdiya ilaya quraacun ay rijlun shaatin laqabiltu walow duciitu ilayhi la ajabtu. haddii la ii hadiyeeyo majin waan aqbalaa, haddii la iigu yeerana waan ajiibayaa. dharkiisa wuu taran jiray, qofkii wax su-aasha wuu siin jiray, ama hadal wanaagsan ayuu ku oran jiray. wuu kaftami jiray, mana ku hadlayn wax aan xaq ahayn. wuxuu ziyaaran jiray qubuurta, markii laga farxiyo wejigiisu wuu ifayey. قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا وأرشاد صلوا على محمد. قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا وأرشاد صلوا على محمد.